daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo alabaad ka dhaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. Barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa Aryan Khan oo ah wiilka uu dhalay jilaaga caanka ah ee Shah Rukh Khan. Wiilkan daada yar ee ka mid ah xidigaha waaweyn ee shirkadda Bollywoodka carruurta ay dhaleen waxaana uu ka mid yahay Aryan Khan carruurta dunida ugu magaca dheer maadaama uu yahay aabahiis jilaaga caanka ah ee reer India ee Shah Rukh Khan. SRK waxa uu ka mid yahay kuwa ugu caansan aktarada reer India waana aktarka ugu hantida badan marka ay noqoto aktarada ka soo jeeda dalkaasi India. Haddaba wiilkan daada yar ayaa waxaa la arkay isaga oo maraya bartamaha magaalada Mumbai ee dalkaasi India kadibna isaga oo qof masaakiina oo gaarigiisa soo dhinac istaagtay caawimaad siinaya amaba lacag u dhiibaya. sidoo la wada ogsoon yahay jilaaga caanka ah ee SRK ayaa waxaa lagu yaqaanaa uu caan ku yahay inuu garab istaago dadka masaakiinta keligii maahane agtaro badan ayaa caawima dadka masaakiinta markii ay baabuurtooda soo ag istaagaan halka qaar kale oo ka tirsan shirkadda Bollywoodkana ay muraayadaha ka dilacdaan amaba ka cararaan goobta dadkaasi masaakiinta ay ku sugan yihiin iyagoo aan u ogolayn in hal rupi oo dhexda ka duleela ay dadkaasi masaakiinta ku caawiyaan. haddaba Aryan Khan maxaa laga fili karaa maadaama lagu arkay dhaqankii aabihiisa ahaa in masaakiinta la caawiyo? dadkaas su-aasha ay isweydiinayaan waxay tahay maadaama masaakiin caawinta uu ka raacay ma laga yaabaa in qaab jilliinka looga bartay aktarka caanka ee SRK muddadii 30 sane ee ugu dambeysay ee uu ku jiray fanka amaba jilliinka shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. waxaa la filaaba waxa ay noqon doontaa markii uu masrax amaba tiyaatarada dalkaasi Hindiya soo galo Aryan Khan wixii uu la soo shirtago inkastoo la wada ogsoon yahay jilaaga caanka ah Abhishek Bachchan oo jilaaga caanka ee Amitabh Bachchan wiilka uu dhalay in uusan noqonin sida aabihii iyo qaab jilliinkii lagu yaqaanay cali dheere inuusan la soo bixin dhagabacayr oo la yiraahdo magaciisa dhabta Abhishek. haddaba daawadayaal waxa aynu sugnaaba waa isaga iyo Susana Khan oo gabadha uu dhalay aktarka caanka ee SRK. marar badan oo labadooda la isbarbar dhigay waa Aryan iyo Susana Khan waxa ay dadku saadaalinayaan in Susana Khan ay ka horeyso amaba laga yaabo in ay booska aabaheed bedesho halka Aryan Khan lagu tilmaamo inuu yahay nin xishood badan oo aan furfurnayn sida aabihii oo Shah Rukh Khan waxaa lagu yaqaanaa kaftan iyo xifaaltan iyo jilliin aad u qurux badan iyo qaab kasta oo yaama door kasta oo filinkaasi looga dhiibo inuu daadiyo waa Shah Rukh Khan. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay masaakiin caawinta uu la yimid Aryan Khan oo wiilka uu dhalay jilaaga caanka ee Shah Rukh Khan intaas ayaynu kusoo afmeernaa halkaad ka daawanaysidna waa saxafi films oo alabaad ka dhactaan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. haddaba haddii aadan ka mid ahayn baada ku xiraan saxafi films ugu horeynba barnaamijkana daawanaysa like saar kadibna subscribe saxafi films taaba barta gambaleelka si barnaamijyada ka baxa saxafi ay joogto kugu noqdaan fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee isla saxafi films inagoo isku duuban oo bahda saxafina waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.